intaas ba ku makanin lahayd ku siin lahayd ku fududayn lahayd buu markuu idin soo saaray idinku qalabeeyay haddana wuxuu idin yeelay maqal wuxuu idin yeelay aragti indhaad wax ku aragtaan dhega aad wax ku maqashaan dhegaha waxa ay arkaan iyo dhaguhu waxay maqlaan iyo indhuhu waxay arkaan waxaa loo baahan yahay khasnadii la gelin lahaa qalbigu ilaahay idin yeelay bakhaarkaa weyn ayuu ilaahay idiin sameeyey oo halkaasee wax walbo ishu aragto uu galayaa wax walboo dhegtu maqasho uu galayaa nimcadaasoo idil oo aynan karneen ilaahay wuxuu leeyahay lacallakum tashkuruun in aad ku shukrisaan bimacnaa aad garataan qiimiga aad garataan inuu ilaahay idin siiyey markaad u aqoonsataanna aad dhahdaan alxamdu lilah walaalayaal ilaahay markuu intaa inoo yeelay dabadeed ilaahay wuxuu leeyahay waktiguu markana siiyey waktiga open ma aha la socda dhalinyaro cimrigan ma furna waktigan wakti furan oo weligii jiraaya ma aha waktigu waa xadidan yahay allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba waktigeena inuu xadidan yahay waxaa ka horeeya dhallinyaronimadan wakti daciif aanu nahay waxaa ka dambeeya wakti daciif aanu nahay waktigeenu waa xadidan yahay 20 sane ugu horeeya ilaahay wuxuu idinka abuuray dacfi wuxuu idinka abuuray taagdari wax ma qabsan kartaa inta ay yartihiin waxaad u baahan tihiin waalid baad u baahan tihiin dad idinkaabaad u baahan tihiin in lida xoojiyaad u baahan tihiin xagga caqliga iyo xagga jirkaba allahu alladii khalaqakum min dacfin wa ilaa 20 sano 20 ilaa 40 sano waa inta la xoogan yahay 40 sano wax ka dambeeyana qofkii wuu soo ururayaa qofkii wuu soo daciifayaa qofkii dhegihii wax ma ka maqli karo indhihii aragtidu way soo laabanayaan qalbigii wuu yaraanayaa xubnihii waa soo daciifayaan waa godanayaa waktigeena marka waa maxay haddii in horen ay tahay dacfi in dambena dacfi ay tahay waktigeenu waa 20 sano ee u dhaxaysa 20 ilaa iyo 40 sano 40 wax yar un baa noo raacaya waktigaa isaga ah ayaa marka ilaahay rasuulku waatan uu leeyahay maalinka qiyaamaha la iska xisaabinayaa can cumurihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah qofna cagihiisa kama qaadayo saaxada qiyaamaha idinku dee waxaad maqashaan saaxad qiyaama waxaad u malaysaan yani hool halkaan oo la imanayo miisaan halkaan yaalo oo la isxisaabinayo maalinkaas maalin aad u adag weeyaan rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa maalin qof walba uu u baahanayo xasanaad in uu helo qof walba uu u baahanayo waa maalin dhalinyaro maalinka qadarkiisa qur-aanku uu ku tilmaamay 50,000 sana 50,000 oo sano saaxada la joogaa waa saaxa aad u dhib badan midna ogaada adduunka wax walboo lagu sheego oo aakhire laydinkaga sheego way ka duwan tahay sidaa ha u suuraysanina aakhiro wax walboo jira cadaab iyo naciimba waa waxaanay dheguhu maqlin indhuhu arkin qalbi bani aadan aanu ku soo dhicin dhan walbo ay ahaato 50,000 sana ma aha 50,000 maanta dee adduunka aanu arkeena waa 50,000 oo sano oo qiyaamo ah saaxadu waa bannaan tahay buura ma leh geeda ma leh bahola ma leh meel lagu dhunto ma leh saaxadu waa bannaan tahay waxa weeyaan saaxada iyada ah waxaa ku kulmaya jinnigii iyo insigii iyo bahaa'imtii xasharaadkii cayaya ay shay ilaahay uu abuuray oo dhan baa halkaa imanaya dadku waa wada qaqaawan yihiin maalinkaa iyada ah lismana eegayo qof walbaa camalkiisii adduunka uu samaynayay ayay u gaaraysaa qoraxdu yani dhididka qoraxdu ay keenaysaa qoraxda waxaa laysu keenayaa halkaa yani anaga halkaasaan ku tilmaana laakiin saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu leeyahay
rasuulka miil ayaa liisu keenayaa buu leeyahay wallahi ma garanayo buu leeyahay waa ninka rasuulka afkiisa ka maqlay sallallahu alayhi wasallam miilka waxa uu rasuulka uga jeeday ma aqaan ma miilkii masaafadii dhulka ahaydba mise waa miilka yare haweenku ku indhakuushaan fiiri khilaafku wuxuu ka taagan yahay ma miilkii lugaha mitirka mise waa miilkii yara ee haweenku ku indhakuulanayeen waa qoraxduna ma ah qoraxda adduunka waa qoraxda aakhire la socda halkaasaa laisu keenayaa dhididka wuxuu dadku uga daadanayaa maalinka isaga ah wuxuu uga daadanayaa qof walba adduunka markii uu joogay sidii camalkiisu ahaa qaar baa gomadaha ayuu u gaarayaa dhididka qaar jilbaha qaar xudunta qaar halkaasuu u gaarayaa qaar baa rasuulku wuxuu leeyahay dhaguhu u gaarayaa halkaas wuu xakamaynayaa yaan la fududaysanin dhalinyaro maalinka ah wallahi waa maalin aad iyo aad rahiib u ah waa maalin marka laga sheekaynaya sheekadiisii aayadii ka sheekaynaya rasuulkeena suuban timihiisu ay ceraysteen weeyaan qofka caqli ilaahay wuxuu nagu siiyey oo qalbigu noogu geliyey waxa weeyaan in aan ku tadabburno dhibka anagana haystaa waxa weeyaan qur-aanka albaqara kasoo bilaabeynaa berbinaasaan geynaynaa wax uu naga bedelaya haba yaraatee malaha shay walba culimadu tiraahdo saxiix ah waa in si serious oo dhaba aad u qaadataan maalinka isaga ah wax badbaadaya waa yar yahay waa maalinka nabiyullaahi aadam uu ugu horeeyo ilaa nabiyullaahi ciisa calayhim assalaam qof walba uu leeyahay nafsii nafsii anigu wax ma qaban karahayo yaa qabanaya rasuulkeena suuban ana lii ayuu leeyahay markaasuu noo andacoonayaa oo uu leeyahay ummatii ummatii waqtigan aad arkaysaan maalinka isaga ah qofna yani waqtigaa la jooga ciriiriga ay zaxmada ah qofna halkaa kama tegayo lugihiisa kama qaadayo ilaa jawaabaha su-aalahan afarta ah uu bixiyo diyaar mootiin dhalinyaro 20 sano 30 sano 40 sano 60 sano oo adduunka aad ku noolayd cimrigan adigu malihid ilaahay baa ku siiyey lacagaha aad haysatid iyo wax walboo qiimi leh oo agtaada yaalla haddii aad bixisid saacad iska dhaafi daqiiqad kuma iibsan karaysid milyaneerada adduunka markay sakaraadayaan oo nafsada ka baxaysa xoolahoodoo dhan isku furan lahaa heli maysaan daqiiqad kamida wallahi niidan helaynin ilaahayna daqiiqad iska dhaafay 70 sano 80 ilaa 100 buu bilaash kuu siiyey caqliga ilaahay wuxuu noogu yeelay lacalakum tashkuruun inaad fiirisaan dib isugu laabo xubnahan aad arkaysaan ee ilaahay idin siiyey caafimaadkan ilaahay idin siiyey caqliga aan xoolaha uga duwanahay ilaahay ina siiyey iyo weliba waqtigaan dherarka badana ilaahayna siiyey maxaa loo baahan yahay inaan ku cibaadaysano qalbigiinuna yaanu kusoo degdegin marnaba cibaado marka la sheego duub in la xirto ma aragtaa khamiiskii masaajidka un la fadhiyo oo la kuududo marnaba yaani qalbigiinu kusoo degin diinteena sidaa waa ka weyn tahay diinteena adduunka iyo aakhiro intuuba waa jamcinaysaa addunya mazracatun lilaakhira ta inaad beerataa lagaa rabaa inaad ka seexatid ma aha masaajidku inaad fadhidid ma aha gabadha gurigeeda inay joogto ma aha in la soo baxo oo la shaqaysto cilmi la barto adduunku waxaa ka dhacaya la eego la iscaawiyo in badan adduunkan caafimaad inaad abuuratid baa loo baahan yahay walaalayaal waqtigan dhalinyaradeenna inta badan inta aan arkay waxa weeyaan iyagoo faraxsan ayay bixiyaan shaygan qiimiga badan oo daqiiqadiisu ka qaalisan tahay adduunka iyo waxa saaran runtii wallaahi anoonan mujaamalaynaynin annagoo faraxsan oo weliba aanan ogeyn ayaan bixinaa biduuni muqaabil laakiin ma ogsoonin in daqiiqad walboo aan bixino annagoo faraxsan oo ay weliba aynan ogeyn ay noo sii dhaweynayso maxay qabrigii iyo aakhiro keenay ogsoon maanta fadhigaan aan fadhino inta saacaddii aynu soo galnay ilaa ay saacadda aan ka baxayna daqiiqad walba inaan usii dhawaanayna qabrigiiyaa ogsoon hadduu ogsoon yahay qofkan daqiiqadan uu leeyahay waa soo berdarayna meelahaan soo aariyeysana meelahaasaan kusoo gaxweyna banaankaasaan fariisanaya uu leeyahay hadduu ogsoon yahay intaas cimrigiisi iyo jirkiisi inay ka go-an tahay miyuu tegi lahaa maya ma ogsoona teeda kale rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayha ilaawina ninka odaga ahaa yaan ilaawin yah malakulmout yaan ilaawin isagu nama halmaansana annaga yaynaan halmaamin waxaan la yaabay
qof la raadsanaya oo lagu daba jiro oo meeshuu cag dhigaba la eegaya oo haddana iska aanan waxba ogeyn iska socda iska hadaaqayo qof 24 saac afkiisii aan kontrooleynin aan camalkiisii iyo gacmihiisii aan uusan kontrooleynin lugtiisa halka uu dhigay uusan kontrooleynin halkaana la saaran yahay malaa'igtu saaran tahay walaalayaal xubnihii badnaa aynu soo sheegnay iyo 360 xubnood ee jirkeenna intuba ilaahay wuxuu noo siiyey inaan ku intifaacno waxa maanta halkaan idin keenay ee lugaha aad isu daba dhigteen ya waxa weeyaan iraado ilaahay awood ilaahay weeyaan awoodiina kuma aydan imaanin inaad ku shukrisaan oo waliba aad eegtaan gabadha facaaga ah ama wiilka facaaga ah ee maanta isbitaalka jiifa oo aanan dhaqaaqi karin jecel in uu mar-un gacantiisaas awood intay u yeelato uu wax ku qabsado wejiga uu ku dhaqdo uu nijaasada isaga dhaqo uu wax ku cuno gacantii ma dhaqaaqi kar afka wax loo gelin anfaleed baa ku suran annaga nimcadaanu ilaahayna siiyey nimcadan aad arkaysaan ee la leeyahay dhagaha wax ku maqla indhaha wax ku arka afka wax ku cuna lugaha ku socda jirkii waa ka aqliga ku fikir uu leeyahay intaas waa intii manaafacaada adduunka laakiin walaalayaal waxaad ogaataan inaad tihiin dad qiimi badan intaas oo kaliya xubnaha leediin siinin intaana ku samaysta ogaadana waxay idinka yihiin ilaaliyaal bodyguard ayay idinka yihiin gabadheena ogsoon maanta ama wiilkeena ogsoon gacanta uu wax ku cunaayo ee uu wax ku qabsanaayo ee uu dhaqdhaqaajinaayo in ay tahay camera ilaahay leeyahay midkeena awood u leh maanta kamerada horteeda intuu istaago inuu dharka iska dhigo inuu been sheego inuu shay xun sameeyo abadan qof awood u leh malaha waa kamerada adduunka maxay ka qaadi kartaa kamerada magacaaga iyo sawirkaaga faafinaysaa wax kale ay ku geysan kartaa malaha laakiin ma ogsoon tahay adigoo dhan inaad tahay wada camera gacmaha inay markhaati ka yihiin oo ay ku ilaalinayaan markii aad qaan gaartay ee qalinku uu kugu bilowday ilaa iyo maalinka aad dhimanaysid gacmaha aad arkaysaan aad ku intifaacaysaan oo aydan u aabayeelaynin waa markhaati waxbay duubayaan kameray duubayaan waliba muuqaal kelima maqal kelima ah waa maqal iyo muuqaal ogaada wallahi waa maqal iyo muuqaal waa lisoo maalinka qiyaamaha yaani waxba yaala ilaahu waana fadeexaynin teeda kale lugahaasna waa markhaati ogaada lugaha waa markhaati jirkaaga maqaarkaaga ilaahay kugu dahaaray ee aad dhaqaysid ee aad subkaysid ee ma aragtaa wax walba aad u bixisay iyadoona waa markhaati ilaahay wuxuu leeyahay marka qiyaamaha la tago al-yawma nakhtimu ala afwaahihim afkaanu xirayna maalinka qiyaama qofkan inuu hadlaa la doonaya xaguu ka hadlaaya wa tukallimuna aydihim gacmihi baa hadlaaya maxay kula tahay gacmuhu inay sheegayaan gacmahaaga intii aad nooleed 70 sano intee meel bay soo taabteen gacmahaaga ilaahay hana asturo ilaahay hana asturo waxaad u malaysaan ilaahay baa ku dhaarshay 20 sano wadankeena aan ka maqneen ninka qoriga siday ee aan diin aqoonin ehel aqoonin islaamnimo aqoonin ee inta dhig daadinayay gacmihiisu maxay sheegayaan ay kula tahay ajiib way Soomaa marka walaalayaal gacmaha iyo jirka waxa soo dhan waxa weeyaa markhaati bay naga yihiin waliba maalinka qiyaamaha markii la tago oo afkii inta la xiro gacmuhu hadlaan lugihiina markhaati yaani gacmuhu waxay sheegayaan wax qofkan uu ku halaagsanayo oo ku tuurayo jahannama forever waligi marka qofka in la halaaga oo jahannamo uu ku halaagsamo lama rabo lama doonayo ilaa markhaati ilaa bil hujja markaas la leeyahay war waxaad sheegaysaan waa arrin waaweyn yaa markhaati idinkaga ah markaas ay leeyihiin lugihii wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun lugihii baa markhaati ah marka maxaa laga rabaa maanta laga bilaabo in aad ilaalisid maxay gacmahaaga inaad ilaalisid almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yani xadiista aayadaha kulli waa wada naqaan aan sheegaya laakiin tadabbur baa loo baahan yahay in aayadaha laga fiirsado in la kor istaaga aayadaha qofka muslimka ah waa kan muslimiinta kale ay ka nabad galaan maxay carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan
maxaa wacay waxaana maalinka qiyaamaha ku fadaxaynayo ku sheegaya weliba maalinkaas waa maalin loo baahan yahay maxay xasanaad badan loo baahan yahay waa maalin calaacal uusan waxba taraynin waa maalin waqtigii aad lumisay uusan maaragtaa uu ku ciqaabayo saxaabi jaliil ah oo aan aad u jeclahay oo la yidhahda cabdullahi ibni mascuud ayaa daa'iman radia allahu canhu ayaa wuxuu ka calaacali jiray waktiga daqiiqad inay ka lunto ma aanu rabi jirin dhalinyaradeenna iyo haweenkeena waxaan rabnaa saxaabada marka laga sheekaynaya runtii saxaabada inay bartaan annaga ma lihin yani john paul iyo margaret waxaas ma soo qaadana tusaalena waxaa tusaale inoo ah qudwa xasana inoo ah inaga badbadan dhalinteena inay barata loo baahan yahay waa saxaabadeenii ridwaan ullahi calayhim waa dadka la leeyahay ku dayda waa xidigahaas oo kale kaad ku dayataanba wuxuu idin yahay ma aragtaa ku dayasho wanaagsan cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu ayaa runtii ninkaas nin miisaan badan ma aanu ahayn nin caata ayuu ahaa maalin buu geed fuulayey geedkii uu fuulayey ayaa lugihiisii ayaa feedmay halkaa dhudhumada ah aad bay runtii u yaryaraayeen wuuna caato ahaa saxaabadii baa markay arkeen bay ku qosqosleen lugaha dhudhuuban ee ibni mascuud wallahi intuu dhaartay rasuulka ayaa wuxuu yidhi lugihiisaas yar midood haddii la saaro miisaanka aakhiro haddii la saaro buurtaa uxud way ka culays badan tahay qofka maxaa lagu qiimeeyaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa camalkaa lagu qiimeeyaa iyo iimaankaa lagu qiimeeyaa laguma qiimeeyo jirka iyo lacagta waad ogsoon tihiin ilaahay inaanu eegeynin muuqaalka qofka iyo xoolihiisa ilaahay ma eego maxaa muuqaalkan ayaa ku siiyey isagaa ku siiyey muxuu ka eegayaa lacagtan isagaa ku siiyey berrin uu kaa qaadi kara waa imtixaan ilaahay ma eego ilaahay laakiin muxuu eegaa wuxuu eegaa qalbiyaalkiina iyo camalkiinu ilaahay eegayaa xadiis saxiixa qofka marka islaamka ah muslimka ah waxaa lagu qiimeeyaa waxa waaye quruxdiisa laguma qiimeeyo annaga laakiin fiiri labadii ilaahay uusan eegaynin ayaan waqtigeeni oo dhan siinay oon ku beerdaraynaa ilahay aan kugu dhaariyey dukaamada make upska markaa fiirisid iyo businesska markaa fiirisid waxa weeyaan xoolihii oo dhan yaa loo sameeyey haweenkaa loo sameeyey waxa waaye gabadhii wax kale kama fikirayso waxay ka fikiraysaa waqtigeedii oo dhan ay siinaysaa ama meysaskeedii guryaheedii buuxa waa un jirkeeda wixii ay saari lahayd waxaasoo dhanna waxa weeyaan ilaahay ma eegayo waadna ogsoon tahay gabar yahay addoontii allahi maalinka aad dhimatid wixii aad ku tacbi jirtay ee xoolahaagii oo dhan aad ku bixisay dhar iyo wixii oo dhan iyo dahab way ka haraayaan jirkaagan aad sii qurxisay aad sii buurisay ama wiilku uu ma aragtaa siduu jin iyo balaayo u ciyaarayay isdaaxuurinaya murqaha waaweyn habeenka uga horeeya yaa lagu sooriyeynayaa aboor baa iskale adigu waxba kuma lihid that's why aan u leeyahay ilaahay ma eegayo habeenka uga horeeyba aboor baa cunaya wax kasoo qaad ma laha muxuu ku qiimo yeeshay marka qofka muslimka cabdullaahi ibni mascuud lugtiisa ay qiimo ku yeelatay waa camalka waqtigiisana aad u ilaalin jiray isagaa wuxuu leeyahay wallahi uu dhaaranayaa anagu noo sheegayaa wallahi ma nadimtu calaa shayin kanadamii calaa yawmin garabat shamsuhu qalla fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii ya salaam wallahi dhaar buu marayaa isagoona dhaar u baahnayn ibnu mascuud wuxuu leeyahay radia allahu canhu wallahi ugama aanan shallaynin weligay sidaan uga shallaayay daqiiqad yar oo i dhaaftay yacni maalin gabalkiisu dhacay cimrigaygiina uu soo yaraaday oo aanan ilaahay agtiisa camal fiican aanan u kororsanin yacni daqiiqad i dhaaftay daqiiqadaas haddaysan camal fiican haddaanan samaynin ilaa daqiiqadaha maogta waa cimrigeena way soo maaha annaga maxaan ka samaysannahay waxaan ka samaysanahay daqiiqado waxaan ka samaysanahay saacado maalmo usbuucyo bilooyin sanooyin intaas weeyaan jirkeena waxaasuu ka kooban yahay waa cimrigeeni waqtigaan ku ciyaarayna waa cimrigeeni baan cunaynaa qofki inuu qormayo soo ma aadan arag wiilkii yaraa dhalinyarada ah ee qurxoonaa dhabanada ku kuusnaa waa kan xoogaa kadib waaba isagoo soo yara ma aragtaa jirkuu soo yara adkaanayo waa ka isagoo soo yara ceraysanayo waa ka isagoo soo ninkii dham yani maxaa qoray ninkan waktigaa qoraaya 5 sano ka hor dhalinyarada aan isnaqaanay maanta waa anaa la yaaban muuqaalkooda iyaguna way ila yaaban yihiin war maxaana helay maxaana bedelay daqiiqadaha iyo saacadaha waa ku aan luminayno weeyaan waktigu wuu ku qorayaa maxaad u qori laadahay adiga
maxaad u qori laadahay inaad qortid baa loo baahan yahay inta adi aysan ku qorin. ayib cabdullahi ibn mascuud marka wuxuu leeyahay daqiiqadaa i dhaaftay ee cimrigayga ka go-an haddaanan ilaahay xaggii aanan u soconin, camal fiican aanan ma aragtaa ee aanan samaysanin, waa tan aan ka shallaayuu leeyahay. waana runo wallahi ninka adduunkan daqiiqad dhaaftay ka shallaaya waa ninka badbaadaya maalinka qiyaamaha ah. laakiin ninka aanan ogeyn saacadaha dhaafay, daqiiqada kuma xisaabtamayna, saacadaha dhaafay, maalmaha dhaafay, usbuucyada, bilooyinka, sanooyinka, qofka aanan ogeyn waa kan maalinka qiyaamaha khasaaraya, waa kan maalinka qiyaamaha ma aragtaa shallaynaya, maalin shallay uusan waxba taraynin. walaalayaal cabdullaahi bin mascuud markuu sidaa yidhi, teeda kale waxaad ogaataan waa walboo noo dhasha wuu nala hadlaa. so idinma oran insaan waxaan nahay qiimi badan markuu ilaahay nagu qalabeeyey xubnahan qiimiga badan oo midoodna aynan siisanaynin adduunka iyo waxa saaran. qofkeenna ma ogola il ha lagaa rido ha lagu siiyo islii oo dhan oo dahab ah ishaada ku bedelo, wallahi inayna ogolayn. nin baa ayaan dhexdaasa wuxuu yiri wiil baa u dhashay 3 jir isagoo ah dhagoolanimo ku dhashay, markaasaa qaahiro igala soo hadlay wuxuu yiri isoo raadi qawqacada yani bahalya oo dhegta la geliy, wiilka dhagoolo wax ma maqlaayo, dheg isoo raadi. dhakhaatiir badan baa maray dhegta oo weliba lafta la qalayo oo wax la gelinayo oo sidii la rabeen uusan u maqlaynin, mar walbana laga yaabo in la bedelo, ayaa waxaa la yidhi taqriiban $70,000 $60,000 ama $65,000. yani fiiri dhegaha qiimigooda markaasaad garanaysaa. dhegaha ilaahay bilaash buu kuu siiyey, indhaas bilaash buu wax walba uu kuu siiyey, keliya maxaa lagu yidhi inaad wax ku maqashid iyo inaad wax ku aragtid, maya xaqa inaad ku aragtid, xaqa inaad ku maqashid, xaqa inaad ku weelaysid. rasuulku wuxuu leeyahay attaqwa haahunaa, cayaar ma aha xubnaha idinku jiro walaalayaal ee aad ka faa'iidaysan laadihiin intiina badan ilaa man raxim. attaqwa haahunaa, maalinka qiyaamahan waad ogsoontihin yaa badbaadaaya. yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalin xoolaha aan waktigeena ku dhuminay aysan anficaynin, awlaad aysan anficaynin, yaana anfacaya? waxaana anfacaya waa qalbi saliim ah inaan la tagno. qalbi ilaahay yaqaana. waa maxay qalbi saliim ah? waa qalbi ilaahay yaqaana, waa qalbi adduunkan waktigiisii ka faa'iidaystay, waa qalbi daa'iman xusuusan qiyaamaha xusuusan weeyaan. raaliga aada codka haddaan idinku dheereeyey soo ma idan garan walaalayaal. maalinku wuu hadlaa, wuxuu yidhaahdaa ya bna aadam ana khalqun jadiid. waa walboo berya, ya bna aadam ana khalqun jadiid وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ilmihii aadamow anigu khalqi cusub baan ahay, waa walboo dhashay ogaada, khalqi cusub ayaan ahay anigu. isniintu waa maalin cusub, anigu isniin waa inoo isniin, isniintii hore iyo tan waxba nooma kala duwanaa, laakiin waxaad ogaataan waa walboo berya, maalin walboo cusub waa maalin cusub. waa khalqi ilaahay, maalmaha ilaahay baa abuuray. waa anagoo kale, anaa khalqun jadiid, haddaan imid ilaahay agtiisaana ka imid, anaa khalqun jadiid. oo maxaad u timid? isniin yahay maxaad u timid? arbaco yahay maxaad u timid? jimco yahay maxaad u timid? wa calaa camalika shahiid, wax aad samaynaysid ayaan eegayaa. fiiri hadda xubnaha ku ilaalinayay soo maahayn, indhaha ku ilaalinayay, maqaarka ku ilaalinayay, gacmihiibaa ku ilaalinayay. maalinkiina waa kana. bal fiiri inta ilaalay ina saaran midkeene ka warqaba. maalinku waa 24 saac, saacadda ugu horeysa ilaa saacadda ugu dambaysa waxay ku leedahay wa calaa camalika shahiid. afkaaga wax ka soo baxa, xubnahaaga waxa ay qabtaanaan eegayaa. fakhtanimnii, iga faa'iidaysta, iga faa'iidaysta. waa maxay? 24 saaci maanta wax wanaagsan sameeya, cimrigiina bay ka go-an tahay, wax aakhiro aad ku badbaadaan, jannadii idin geeya, ilaahay idinku jeclaada ayay samaysta.
أفر اللواتن كساعد أقدم بيس مرك عمري مالك عمري يسوى أفر اللواتن ساعة دقيقة أقدم بيس وحيلاده وأنت جايا حاجة وتجيسا إلهي أكتيسي تجيسا فإني لا أعود إلى يوم القيامة إلى مالك قيامها نمسوا لا بناي شلي وي بحذي وحي أن صميني أردنا ويلا بحذي أجادا ورصدا أفرن صبحي markaad soo kacdid wax walbo aad sheegtid ilaa iyo waqti ugu dambeeya halkaas ay ku ridatay xumaan iyo samaan boorsadii bay xiratay ilaahay agtiisay tagtay keen ugu yar maanta wuxuu jiraa 16 sano 17 sano qalinka 2 sano 3 sano ku socday imisa maalin weeyaan marka ilaahay aan ku dhaariyay imisa maalin baa boorsadu xirxiran yihiin ma soo ogsoon tahay saaka subaxii saacad ugu horeysay aad soo kacday hadalladii aad tiri maanta ma ogsoon tahay wixii ahaayeen إلهي رالي ما كأها مسك ما أنا أهين متى هاي واحد جنودي كجينايا مس واحد عذاب كجينايا ويان شل إسكاب الدابة كأنه حسوس شل وحكوا هذا قي ويري عكت هذا ماشي أي مرتي جعنت هذا واحد تابتي شل مؤكسوني إسكاب راف سنوين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله مالك خلائق ضدنا ليس كنا وإلهي وشيء يقفك ويسمى إلهي بان حسوسنا إنه شيء جاية إلهي وكوبي مالك قلنك وكوب باللوضي إلا إيمانك أبدمتي إلهي وكوبي أعماش هذه يجينا ويحل مامين ورسومينا هالمامين شالوا وحي آنو صمينا دربني عن حسوسنا سنة كهر اسكاب الدابة ما دام هالمان كانوا دوية إنسان آنو نهي محلو بهاي كل وإلا وينا إلهي أكتي سنة لقمي إلا وياه إن أن كنترول نوامحي أفكينا وحكا صوبحايا إشينا وح أي أركيسة دكتينا وح أي مقليسة قعموه وحي قبانيان لقوه وحي قبانيان إن أن كنترولنا لو بهاي صوما ولا لا وقتي وقيمي بديه وقتي إلهي نسيه هرت أنكم هذينه وقتي أنا إنه كفى إذا سنه لكن سأوقف إذا سننا وقتي وحد وقتان ابن القيم رحمه الله وحوليه دارها إلهي وحكي لي سدح دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة دارها واسدح توبتن كحكتا ويكسي دارتها ولا ليال دارتن الدنيا ذا أقولوا والله بسع يعني إذا لبضناني والله بسع والله واكيرتها ولبا يا داره واسدح دارت الدون كأغير وساعد أما الله بسع وحاكو حكتا دارته دار البرزخ أنا جا مركفيري وحان دارتان وحنا لو كاني وامحي ساعدي لو ساعة وحين قطبة إن أن أبورنه عافمات بيرت أن أبورنه حكيم كو قوسانينا قياما كو قوسانينا ولي بقبرك أقوه رأي كو قوسانينا نبي الله آدم وواجه بنت عليه السلام إلا إيه حد قبرك وكو جراد دارت وأدر بضانتها لكن أركي ميسي القف نول واجه نبي الله آدم إلا إيه ما أنت نول مرها برزخ ويكدر تايتن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلا دركي سوى أنت إلهي بأن تكون دارية دارت برزخ ما أنت يا كورهم اللي يردين السمية كشي كيستا ده كان وقتك الضيعاية ده يردو كليا ما هي أنقو دنبا مساجد ده أنا كنت كنينا مركا وقتك الأدمو وحواي سيدي وحان ورورينا ماركا جيل أومن وانو تقني مركا كسوب بحنا وهذا ركتين مساجد هواينك ما مري كران باورتي ما مري كران واحد زحمه مساجد هورتودا وهذا ركتان halkaas loo taagtaagan yahay war maxay loo taagtaagan yahay 10 baa la sugayaa imisa saac baa u dhaxayso duurkii casarka iyo maghribka intaas oo saac maxaa waqtiga loo dhuminayaa ma la shaqeeyo ma aakhir loo shaqeeyo inta haddana wax kale lama sheegayo wax afkaaga ka soo baxayana waxa waa ilaahay baa og xaaladooda waqtiga walaalayaal aad buu muhiim u yahay labadan saac ee adduunka aynu joogno ayaa waxa loo baahan yahay in aan investment ku sameeyno in aan badino inay nooga khayr badnaato yani cimrigaagan yar ee saacadaha kumanaan sano oo maalinka qiyaamaha aad guratid tada kale adduunkan ilaahay baa ku diyaariyay wad ogsoontiin gidigin fadhigan maanta aad fadhidaan ilaahay baa idin diyaariyay waagi uurka hooyadiin aad ku jirteen 4 bilood ayaa la idin qoray wixii aad cuni lahaydeen ogaadata wixii aad cabi lahaydeen meeshaad cagdhigi lahaydeen hawada aad aragtaan wixii aad ku lahaydeen aad oksijiinta ka qaadan lahaydeen ha isku dilina ayaa la yiri yaa loo ordin kitaabada ilaahay soo dejiyo meel walbo aad eegtid adduunku ordo kuma taal ilaahay wuxuu leeyahay famshu fi manakibiha
warkaadsada huduu si tartiib ah asbaabta un la imaada ma aragtaa ilaahay baa idin diyaariyey socda daafaheeda socda oo tallaabada qaada war maxaa adduunka marka la isugu dilaayaa adduun inaan isku dilna maaha ilaahay baa tan qaadi maysid orod walbo aad orodid wax walbo aad jamcisid wallahi inaadan ka qaadaynin wixii ilaahay ku qoray maahane qofna nafsadna ma dhimanayso ilaa ay kaamil noqoto oo ay qaadato oo ay buuxsato oo ay wada cunto wixii loo qoray hawadii loo qoray biyihii loo qoray ilaa ay qaadato wallahi inaanay adduun ka tegaynin maxaan u ordaynaa maxaan ilaahay uga fogaanaynaa laakiin halka loo ordayay ee aan lagu diyaarinin waa halkee aakhiro weeyaan la socda aakhiro diyaar idin ma aha aakhiro lidinma ballan qaadin aakhiro lidinma diyaarinin aakhiro biyo aad cabtid kuuma yaal wallahi inaanay biyo kuu jirin guri kuu jirin geed kuu jirin ilaa adduunkan wixii adigu aad samaysatid maahan cimriga maxaa lagu siiyey caafimaadka lagu siiyey xubnaha lagu siiyey caqliga iyo maaragtaa indhaha iyo dhegaha wixii oo dhan maxaa laisugu kaa rakibay mataqaanaan inaad halkaa u shaqaysatid weeyaan ilaahay markuu ka warramay aakhiro fiiri fastabiqu lkhayraat wasaaricuu ilaa magfirati min rabbikum wasaaricuu fastabiqu lkhayraat falyatanafasi lmutanaafisuun daa'iman dhaqtan ayaa laga cabiraa aabbaha inaad ka badisiddaa lagaa rabaa aakhiro maxaa la fiiriyaa qofka kaa sarreeyaa la fiiriyaa qofka kaa orod badan ee aakhiro kaaga orod badan kaa salaad badan kaa cibaado badan waktiga ka faa'iidaysanaya kaasaa la eegaa laakiin adduunka ninka kaa hooseeya la fiiriyaa si wax aad haysatid aada ugu qanacdid walaalayaal abu dardaa saxaabiga jaliilka ah radia allahu canhu waa saxaabigii labaad maalin buu kacbada yimid isagii iyo saxaabadiisii markaasaa wuxuu yidhi intuu kacbada sidaa u fiiriyey ayuu iska ilmeeyey abu darda radia allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi dad yahow marka aad safraysaan adduunka aad u safraysaan aad gobollada isaga kala gooshaysaan soo masahay qaadataan waxay yidhaahdeen haa abu darda wuxuu yidhi fasafaru laakhirati abcadu mima tusaafiruun daa'iman saxaabadu waxay ahaayeen dad xusuusiya ya aakhiro dad xusuusiya ilaahay dad xusuusiya gurigeeni miicaadka ah ee runta ahaa adduunyadu kuma degdegi jirin waa 2 saac waa laga tagayaa adduunkan wuxuu yidhi safarka aakhiro ayaa ka dherer badan ilaahay baa ku dhaariyay safarka aakhiro wallahi waa dherer badan yahay nabiyullaahi aadam weli ma aanu gaarin waa sugayaa weli annaga maxaad u malaysaa adduunkan waa la marayaa addunya daaru mamarin wal aakhiratu daaru maqarrin aakhiratii nagaanshaha weeyaan man nasanayna oo daalku naga bi'i maayo ilaa aakhir aan cagaha saarno adduunkan waa la marayaa horteenna waa la soo maray dadkii wanaagsanaa ee saxaabadii salafkeeni saalixa ahaa inaan ku dayano weeyaan maanta meel fiican bay ku sugan yihiin inaan ku dayanaa loo baahan yahay dad baa qudwo inoo ah hogaamiyaal inoo ah safarka aakhiro ayaa ka dherer badan wallahi saa ka dherer badan maanta dhalinyaradeennu kama sheekaystaan daartaan oo barzakha kama sheekaystaan ma ogsoontihiin barzakha walaalayaal wuxuu yahay saacadda sakaraadka uuna qabto ee adduunka inooga dhammaato malaa'igtu ay soo weydo mikaa'il uu soo waayo malakul irsaaq uu soo waayo neeftii aanu neefsan lahayn meel walba intuu maruu leeyahay maanta waa ku soo waayo oxygeenta waa hawadan iska maaragtaa dee openka ah ayaa waxaa lagaaga soo waayey wixii aad qaadan lahayd neefsi aad neefsan lahayd maxaa wacay wax xadidan baad ku leedahay ogow talaabadaadii wuu ku soo waayey kuuma qorna lawxul maxfuud inaad dhulka caga dhigtid cagtaada cid walboo qaado wallahi dhulka inaanay saari karin sariir baad ku urursatay jidinkaa waxaad marisid lama hayo maalinkaas adduunka aad ka tegaysid miyaanu isaga sheekaynaa maxaana qabsanaaya taransidka aanu marayna ilaa iyo qiyaamaha miyaan isaga sheekaynaa ilmaheyna miyaan uga sheekaynaa waa may ugama sheekayna maxaa wacay waalidiintiiba kuma baraarugsana dadkii oo dhan adduun ma aragtaa ilaahay u ballan qaaday bay ma aragtaa wayba ka orodbadiyeen ba ilaahay waqtigaas inaan dadka uga sheekayno dhalinyarada qalbigooda inaan ku abuurnaan rabnaa aakhiro rasuulku wuxuu leeyahay ilaawina haadimi ladhaat isaga sheekeeya akthiruu min dikri haadimi ladhaat almowt war ninkaa isaga sheekeeya ninkaa isagaa walaalayaal inaan barano oo aan la saaxiibno daa'iman carabkeena uu ku badbato ayaanu doonaynaa si nolosheena ay u fiicnaato wallahi maalinkaas markaan ka tagna adduunka meesha kale nala dhigayo waa halkee sakaraadka
ولا ليال رالنا هذا رنتي وقت يعني سكرات أنا كشاكين ومبهني لكن وحويا سكراتك ولا ليال ولحظة قف والباء إنسان أو إلهي أبورين نفسد قليي سوي سويا رسول كان صوبا ودوك سنتين صلوات ربي وسلامه عليه أو عمري دنبي سيهوري كيد دنبي الضعفي صلى الله عليه وسلم ودوك سنتين ولا ليال وقت قبوء أيال لقى قاضي روح ذا أو إلهي لو قاضي عائشة رضي الله عنها كهيسي لابتا هل كالابتا أي كهيسي عائشة وحي ليدهي واهين كريوايا رسول كان صوبا كليل كيسي واهين واي وديدا يا رسول كان صوبا صلى الله عليه وسلم ديد با كسعدا بيا لو كيني بيها سو غعنتكو قادايا او اسكو قبوجينايا صلى الله عليه وسلم markaasuu dhawaaqaya ilaahay buu baryaaya oo uu leeyahay subhanallah subhanallah inna lil maut sakarat ilaahay baa nazahan ilaahay baa sakarat qabanin ilaahay baa xanuun qabanin ilaahay baa xumiyo dhan ka nazahan mawtku wuxuu leeyahay kulayl mawtku wuxuu leeyahay culays mawtku wuxuu leeyahay qabqabasho ya allahumma hawwin alayya sakarat al maut rasuulka ilmaynaya rasuulka kulul rasuulka biyo wajiga kuma saxanaya wa khayru khalqi allah annaga maxad moodaan walaalayaal oo adduunka ku badinay xumaan oo waqtigeeni dayacnay raasu maalki ilaahayna siiyay 80 sano 90 sano aan ma aragtaa wax walbo xaraan iyo xumaan iyo xalaal aan ururinay oo wax walba aan ku hadalnay lugteeni meesha aan dhigayna ayna u kala aabiyeelin maxad u maleynaysaa wax laxdadaas waa laxda qof walba sugaysaa qof walba inuu u sahay qaataa marka loo baahan yahay maadaama ilaahay uu saacadaas leeyahay qof walba uu maraya oo nafsada laga qaadaya sakaraadkaas uu qabanaya wuxuu ku siiyay ka hor intaanay ku imaanin cimrigan dharka badan buu ku siiyay caafimaadka buu ku siiyay inaad sahay soo qaadatid wa tazawwadu فإن خير زاد التقوى كنا أنفعي ستاسويا صحيح ما هيلب أن قادنا معها ولو بهاي آخر هيلب ولو بهاي أو قبرك أنت أتكجر يسد واحد أنت ضبها أنتهي والله واحد ضبها أنتهي در أدحرتها ودبها أنتين وقاعدة قبرك ودبها أنتين واحد ضبها أنتين واحد عنتان بدبها أنتين قبرك نحديثة waxaad cabtaan baad u baahan tihiin qabriga dhexdiisa gogol baad u baahan tihiin qurux badan oo xariir ah oo aad ku raaxaysataan baad u baahan tihiin waxyaabo madadaalaad u baahan tihiin laakiin ma aha gaarsiloojka ma qaadanayna ogaada ya waxa qabriga looga baahan yahay inta ma aha daar walba dhaqan bay leedahay daar walba sifo ay leedahay adduunka sifadiisu waa sifadan aan ku noolnahay laakiin aakhiro waxyaabo badan oo u baahanahay waa maxay amalka wanaagsan weeyaan illa man ata Allah biqalbin والباقيات الصالحات ويان هذا المعان بعض أنت مسلم باتا يا إخواني هذا الدونك رسولك عليه الصلاة والسلام عليه هكذا تجينا الدونك إلا إذا كو حسناتك أدعوني لهذين أباهن وتماهن صحيحنا قاعدة تتبالو باهن ياهي ودوك سونتي ودد دير ولا ليال نسوغيسا ودد دير وامحي مالك هويدين أين هذا الشيء أيام باللوني سفر كدارت آخره وقادا واسعنا قفل باو صعدا qof walba daqiiqadu ku soo dhaafto ilaahay baa u sii dhawaanaysaa qaarkeen uu gaaray qaarkeen uu socdaa oo waa dhow yahay inuu gaaru u dhow yahay maanta soo had garatay ma tada kale safarkaas daarta aakhiro ninka ka qaadaya qof walba maalin ba irida loo soo garaacaya qalbigeena yaanu marnaba ka bixin aktharu min dhikri hadim alladhat aktharu min dhikri hadim alladhat marnaba qalbigeena walaalyaane ka bixin qalbigaaga saacad walba aad soo kacdid mar walba aad dhaqaaqdid aad fariisatid aad istaagtid in malku daba joogo marun aad dhimanaysid qalbigaaga hadaad gelisaan oo raasq ay ku noqoto aad xusuusataan wallahi afkiin wax xumaana inaanay ka soo bixin gacantiin wax xun qabaneen ishiin wax xun fiirinin dhagtiin wax xun idin ku maqleenin maxaa wacay qalbigaaga qoyan qiyaamaad ka fikiraysa marka iyada ah tada kalimada malakul maut markuu yirido ku soo garaaco oo ku yimaado hadda keenay diyaar waa ilaahay baa idinku dhaariyay midkeena wallahi diyaar inaanu ahayn abadan qof diyaar u ah anigan allah ka dhigo wallahi inaanu jirin laakiin waxa way ilaahay wanaag baan ka rajaynaynaa ilaahay ma aragtaa waxaan ka rajaynaynaa dambi dhaaf baan ka rajaynaynaa aakhirana amal wanaagsan baan ka rajaynaynaa laakiin baska markuu guriga ku soo istaagay iridiisa baska waxa la yiraahdaa al-maut
magaalo marka u safraysid bas baa la raacaa soomaa waxaa la raacaa diyaarad waxaa la raacaa markab taran ayaa la raacaa laakiin aakhir intaasba looma raacay baska waxaa la yidhaahdaa almawt waxa darawal ka ah yaa waay malakulmawt halkuu ku soconayaa wa min waraa'ihim barzakun ilaa yawmi yubcathuun wadadaa dherarka badan ayuu ku soconayaa walaalayaal safarkaas waa safar dhirir badan waa safar haddaad isla gashaan hooyadii ku dhashay adduunka ku koolkoolin jirtay madaxa ku saari jirtay wax walbaba ku huri jirtay hadday kula saaran tahay wallahi galaas biya inaanay ku siinaynin xaqiiqada ogaada iyadaa cunaysa oodkaceeda iyo doolshadeeda iyo xalwadeeda inta ay sidato wallahi keligeed baa cunaysa inayna kubi ku siinaynin qof walba inuu sahay qaataa loo baahan yahay tazawad liladii laa budda minhu فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أصحي قاضي كان لقى مارمانك قبري لقليا أصحي قاضي راليميات كتهي إن آد سفر لقشت أمت ألابتوض أحر حرنتهي برسوين كود أبوحان وحل عبي وحل عنو أدوغن أصحي لأن تهي وركيني راليكو قفنا راليك معها ولا ليال مركان تجينا هالكان هي أن يوروب آذينا وادوكسونتين دائما وحوايه وحن ويدينا ترانسيتك وديارده halkay ترانسيت ku tahay magaalo hebla meeqa saac la joogaya wallahi 3 saac 4 saac marabti 3 saac 4 saac yani dibkaas yara diidaysa wartanba waa weydiina oo taransika dhawaan weydiinay waa adduunyadii yareeday hawadu furneeday aad lacag siditay aad meel walba lacagta dhigi kartay war aakhiro oo aan u socono oo safarka dhabta ah maxaan taransitkeeda u weydiin laanahay maxaan u weydiin laanahay halka aan marayno انت ما حتى انسي مرينا ما ويدين لانا هاي والسكرات بان سوغايا قبري بان سوغايا سؤال بان سوغايا منكر نكير وحنا سوغايا عذابتي اما نعيمتي جنة قبري انا سوغايا والله صباحيا حساب محشر كي ولا سوغايا ميزانكي صراطكي اما جنة واما النار فريق في الجنة وفريق في السعير انت صودين لسنشاك يا لودا هيا بلاش الهي وحوليه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومن دل إذن أبورنا دمودي هدي إلهي دل وكو أبوري لها إلهي وكان الزهاية هاي هدو كو أبوري لها دل قلبي قلايا إنا ندي في السنة لو باهي قلبي قاقا وحن إنا نقلين مرايدو كالويان وهلك أدون كان إلهي مخزن وكردقي وحاوضا لغو قريو مالك قيامها نسرون نظيفة كبت بهذه سدويان إيش هادو وحا أي عرقتوه تنهوري أضا أسكالي باليري لكن مد لوادي عليه قلبي قلايا موكسون تاري ما أنت مركان إردان كبحنا واسكفير فيرنا ميل والبا لكن إيش وحي قبنا يسوى كامير ويدوب يسعجل كوا هلكا سال الروائن الإلهية دكت هذا واحد مغليس حالة أنه محبذنا أي واسكده يسنا هسك واحد ما مرها واسكده يستي دكت ما هو اسكده يستي قلبي وجود بايا آخرين واحد بدبالي إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي قيمي بدن بات سيدتان ولا عليها قلبي إن كفى إذا ستان كلن كان وكلن كيني وريي كل مو بدن واسقوا إيمان دونا هدو إلهي إدمو waxaan ku soo gabagabeynayaa luqmaanul hakim daa'iman meelaha majaalista sidaan oo kala muxaadarooyinka ka socdaan qeey dadka way wanaagsan saalixiinta la soco meelaha kitaabada laga akhrinayo goobaha ilaahay beedadka ilaahay meelaha culimada daa'iman ha ka fogaanin jilbaha waa inaad la gashaa buu leeyahay wiilkiisu la dardaarmaya annagana wuu nala dardaarmaya hooyada waa inay ku tiraahda wiilkaygi oo culimada ha ka fogaanin maxaa wacay muxuu ku cileeyay fa inna allaha يحيي القلوب بكلماتهم قلبي يذا إلهي وحكونا وليا وهذا العلماء دائما ودح ليس قلبك صوماها كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلهي وحنو شيء قلبي إن يدح ليستان محاو عيش وحي عرفت قلبي وقد بني باينين نكت مذوبة كل عيسى نكت وحي مقشه نكت مذوب inaad masaxdid baa rabaa hadii qaafil aad tahay oo aad halmaantid oo maanta dhan waqtiga ku dhaafay aadan ogeyn oo wixii oo dhan buu maarta waa madoobaanaya haduu madoobaado waxaad maqlaysid male xalaash waa ku xaraan xaaraantuna ku xalaal wax walba yaani waa kula waqt markuu wuxuu yiri qalbiyada waxa nooleeya waa kalimaadka culimada waa hadaladooda waa fadhigooda bal culimada qaar waxay yiraahdaan fiirinta qofka caalimka wajigiisa la fiiriyo waa cibaado marka wajiga shaydaanka uu yahay macsi ay tahay إلهي قلبي يدو وحوقنا ليا سيدا روبك وحوقنا ليا دولك روبك وارك دولك مركو أباريها مركو سودكو دولك ننسدو نقنايا وشنقرايا وفرحايا ودلدلاعيا بيه وقلايا مركي وحصور لنا وارك سيدا سوكالي ولا ليا لو حدو كل دردار مايا علماء إنا إذن كفوغانين قوابها إلهي إنا إذن كفوغانين دائما دتكو وناكسن إنا بليهدان
maxaa wacay kuwaasaa laga yaabaa jameecadaas wanaagsan ee solaxada aad dhehdeen darteed dembigiina ilaahay inuu ku hoobiyo in maaragtaa uu ilaahay ku islaaxiyo teeda kale safar ugu dambeeyo hadda Denmark aan tagay wallahi suma wallahi dhalinyarada badbaaday ya maxamed uu inoo sheekeen doonay dhalinyarada badbaaday waxa weeyaan dhalinyarada ku xiran goobaha ilaahay masaajidada inta aan masaajidada ku xirneen khadka ka baxeen walaalayaal intaas ku soo gabagabeynaya hadduu ilaahay yiraahdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.